midda koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xulka gobolka Nugaal tanaasul badanayaal oo tanaasulay inay u ciyaaraan magaca Puntland si tartanku u sii socdo oo tartankii gobolada Puntland sagaalka gobol oo socday naga galay hakad yar oo ahayd in ma garanaysaa dhibcii hore u qaateen dib looga celiyay iyagoo ixtiraamaya Puntland iyo wadajirkeeda iyo ciyaaruhu inay sii socdaan si qurux badan runtii sharaf bay ahayd tanaasulkaas waxa kaloo sharaf ahayd inay maanta guushoodii ay xaqiijiyaan maadaama ay tanaasuleen haddana ay cadeeyeen inay dhibcii sii haysan karaan aad baan ugu mahadcelinayaa taas waa midda labaad waxaan rabaa gudoomiyaha gobolka inaan fariin aan faro gudoomiye waxaa la rabaa dhalinyarada xulka iyo maamulkooda inaad u samaysaan sawir frame ah maadaama taariikh adag ay dhigeen in gobolka lagu dhajiyo shanta degmo oo gobolkana lagu dhajiyo sawirkooda maadaama ay ka qurux badan tahay maanta ciyaartay ciyaareen in koob la qaado ay ka qaalisan tahay marka taas baan rabaa inaan gobolka gudoomiyaha gobolka fariinta u dhiibo oo degmooyinka shanta degmo iyo xarunta gobolkaba la suro si ay u noqoto taariikh aan la ilaawin oo ay u sunteen Puntland anigu intaas baan rabaa inaan iraahdo dhammaan waxaan leeyahay gobolka Nugaal iyo taageerayaashii Hambalyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xulkii gobolka Sanaag oo iyaguna runtii sida qiimaha badan u ciyaaray oo tartanka galabta ciyaar fiican soo bandhigay iyagana waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin taariikh weyn bay ahayd oo marnaba aan la ilaawi karin waxaad badiseen 2 jeer gobol inaad 2 jeer ka badisaanna wax sahlan maaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha Allah taala fariinta aad dirteen oo dabaaldega ahaana cid walba way gaadhay insha Allah waxaan rajaynaynaa in maartay kulanka inoo xiga koobkii inuu hal talaabo inooga harsan tahay kulankaasna inaanu dadaalo hadduu alla idmo waxaanu la ciyaari doonaa gobolka Cayn باذن الله الكريم maalmaha fasaxa aad leedihiin waxaan rajaynayaa inaad tababarkii dib ugu laabataan waxaa idin sugaya halkan dheer waxaa idin sugaya kulan aad u adag kulankii maanta wuxuu noqonayaa qarso marka waxaa idinka rabaa qof walba inuu diyaar garoobo aad u diyaar garoowdaan inaad maaragtay kulankaas sidaad ugu gudbi lahaydeen final kulay waxaa joogtaan meeshii gobta loogu talagalay waxaad samayseen tanaasul oo la ciyaarteen kooxdii si aad u samrisaan أنا كقولي ستين ما شاء الله تاس وحوي وح مارتي محاتا الليل كريموية إذن كدولي مارتي قنعنت مارتي عواشدي أي عذنيين كوحدي كلو ديجينا هيدو قبل كسول سناك محان كويرا هذا إذا كانوا عذنيين رنتي إن إذا كعودان ما هي سبب تاي إذنكو وحشقاكم أيضا الهين عياري وايا هردي ولي ciyaaraha idii haray runtii wuxuu hore oo ciyaaraha sidaa u leeyahay jireen wax badan baa iska bedelaya alxamdulillaah rabbil caalamiin caawa guul baynu joognaa meel fiican bay noo maraysaa intaasoo aan kala sii dhawaano weeye runtii halgan dheer baad gasheen goolal qurux badanna waa dhaliseen oo goolasha dhasha goolasha ugu qurux badnaa baad dhaliseen annaga bannaankaa ka fiirsanaynay ciyaarta ninka ku jira ma arko ninka bannaanka jooga arka raggana kala tilmaami kara laakiin kooxdiinu koox isu dhiganta oo waxaad ahaydeen kulligii inaan kala dhicin ma sha Allah nin walba meesha stirinay nin ceeb la leeyahay ku baarig nin bahalkeer muxuu hayto rag adag baad ahaydeen ma sha Allah marka waxa weeye hadalkaydu ku badinmayo sidaas inoo tahay ballantu sidaa inoo weeye muxuu hayto ciyaaraha dambe hadeed kuwa dambe si xiisa badan sababta ay tahay waa ka kululiyiin kuwii hore marka ay daranta ciyaartu haday bilaabato sheekadu maxaan ku yiraahdaa sidaas iyo guul baan isku ognahay Allah idinku guuleeyo maxaan ku yiraahdaa koobkana waad qaadi doontaa insha Allah caasimada kaba tagi doono saan rajaynayno